kulantii wacan oo wanaagsan akhyaarta inaga daawata tusmada filmada meel walba oo joogtaan waxaan hawadaydin kaleena subax wanaagsan kusoo dhawaada akhbaaraadkana saakeeto laga xariiqay qaaramaha Bollywoodka iyo soo kala kuwa koonfurta iyadoo sidoo kale warbixintana saakeeto la inta badan ku qaada dhigi doono wararka koonfurta laga xariiqay iyo waxyaabaha kale xiiso leh ee ku saabsan xanta filmada goosgoosada iyo waxyaabaha kale xiiso leh hadda waxaan ku bilaabi doonaa jilaaga Pushpa kasoo muuqan doona ee Allu Arjun ayaa markan waxa la sheegay inuu iska diiday muuqaalka gaarka ee filimka Shah Rukh Khan ee Jawan oo ku lahaa kadib Shah Rukh Khan filimkiisa box office-ka hit ka noqday qafal markan waxay tahay mid suugala inay daawato filimkiisa xiga Jawan waxaana filimkan directorka koonfurta ee Atli taas oo soo kal filimkan uu yahay filmada ugu xiisaha badan sanadkan waxaana kala soo muuqan doona Nayantara ay features tabti kuwaas oo door muhiim ah filmkaasi ku leh haatana wararku waxay sheegeen jilaaga Pushpa star Allu Arjun in uu loo soo jeediyay ama film sameeyay soo jeediyay in filmkaasi oo muuqaal gaar ah ku lahaado waxaana soo kala taasay noqotay mid taageerayaasha aad u xiiseynayay in ay arkaan markii ugu horeysay Allu Arjun iyo soo kala Shah Rukh Khan oo film soo jira kaga soo muuqdaan hasaata wararka hadda soo baxay ayaa wuxuu yahay warar ka nixiyay taageerayaasha sida warbaahinta ay qoraysan Allu Arjun ayaa waxa la sheegay inuu isku diido doorkiisa oo ku lahaa filimka Jawan si ay qoraysa Benga filana waxaana Allu Arjun uu yahay mid la wadaagay sheekada filimka saatay waxa uu sheegay in jadwaladiisu buuxo awgeed in jilaagan uu iska diido waxaan sidoo kale wararka intaas si raacinayaan in jilaaga markaan soo adag isku diyaarinayaan jadwalkiisa Pushpa the Rule jilaagan ayaa wuxuu yahay mid markaan howl adag ka sugaysa in uu laba jadwal uu soo gabagabeeyay ee filimkiisa Pushpa taasoo markaas xoogiisa isku geyn doono wararka ay waxay soo kala soo jeedinayaan in Allu Arjun uu markaan uu waqti u helay inuu ku fakiro doorkiisa gaarka ee filimka asaatay way ku adkaatay kadib markii uu doortay filimkiisa Pushpa ka doortayna filimka Jawan muuqaalkiisa gaarka taasoo markaan keenaysa in warar laga naxay u soo hoyatay Shah Rukh Khan iyo soo kala taageeraashiisa iyadoo san suurtagal weysay in Shah Rukh Khan iyo soo kala Allu Arjun si warjira film loogu wada arko kadib guusha filimka Pushpa the Race ayaa taageerayaasha waxay ku markaan aad u xiiseynayaan qaybta labaad ee filimka taas oo kala soo muuqan doona Fahad Faasil oo door muhiim ah filimkaasi ku leh qaybta koowaad ayaa wuxuu ku dhamaatay Pushpa oo markaan ku dhawaaqayo dagaal inuu la gal doono Power Scene kaas oo Fahad Faasil doorkiisa u yahay waxaana soo kale ay tahay mid door muhiim ah ku leh Rashmika Mandanna kaas oo doorkeedu ah tirshada hogaaminta filimka taas oo jacayl ku la jilaysa Pushpa waxa soo kale warar qaar soo jeedinayaan in muuqaalka filimkaasi ee Pushpa tuu soo fasixi doono xilliga dhalashada jilaaga Allu Arjun ee April 8 taasoo muuqaalkiisa soo fasixi doono filimka ay waxa u dhigantaa in sanadka soo socota 2024 kana filimkaasi la daawan doono ugu dambeyn dhinaca kale waxaan eegi doonaa Rajinikanth iyo soo kale shabakada Leica Production ayaa markaan waxay ku midow doonaan film kaas oo lagu magacaabo Telefer 170 Rajinikanth ayaa markaan wuxuu yahay mid u soo socda filimkiisa Jailer kaas oo taageerayaasha yimid markaan aad u sugala in ay arkaan filimkiisa Jailer waxaana soo kale warar kale abdada ay ka soo kordheen in film soo saaraha Bunyan Silver oo markaan shabakadiisa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la shaqeyn doonto jilaaga ugu caansan ee qaybta Teluguga ee Rajinikanth taas oo soo kale ay ka wada shaqeyn doonaan kaas oo kala hor ka wada shaqeyn 4 film sida 0.0 dabbar iyo kala salaam waxaana soo kale markaan ay ku midowdana filimka xiga kaas oo lagu magacaabo Telefer 170 waxaan soo kale si rasmi ah ay ugu dhawaaqeen Leica Production ayaa waxay ku dhawaaqday filimkeeda xiga ee Telefer 170 lagu magacaabo waxaana directorka filimka Jebin ninka lagu magacaabo Nanaval waxaana soo kalena film soo saarash markaan ay sheegeen aad ugu faraxsan yihiin inay la shaqeeyaan Rajinikanth taas oo Twitterkooda ay ku xaqiijiyeen waxaana soo kalena ay sheegeen in markaan war farxad leeyahay in ay la shaqeeyaan Rajinikanth filimkooda Telefer 170 waxaana soo kale noqon doona mid director lagu dhigi doono TG Nanaval iyo soo kale Anurag Ravichandran uu yahay qaybta music directorka ama ninka music filimkaasi garaaci doono directorka TJ Nanaval ayaa wuxuu yahay mid qof walba kaga yaabsaday filimkiisa ugu horeysay oo directorka naqada ee Jevin kaas oo hogaamiye Suuriya filimkaas ayaa wuxuu yahay mid wacdar ka dhigay qaybaha adduunka asagoo soo kale filimkaas oo noqday filim guuleystay markaan ayaa wuxuu yahay mid filimkan jadwalkiisa duubista ay bilaaban doonto dhawaan iyagoo filimkan lagu wado in la daawado 2024
waxaana sidoo ay qorayaan taleefar 170 filimkan ay wuxuu yahay mid ku saabsan arimo dhacda run ah oo ka dhacday qaybaha Hindiya waxaana soo kale filimkan sheegay inuu ximbaarsan yahay fariin aad u adag waxaana soo kale filimkan noqon doonta mid wacdar ka dhiga qaybaha teatarada jilaagan mega starka ee Rajinikanth ayaa wuxuu yahay mid markaan u diyaarsan filimkiisa Jailer kaas oo directorka Nelson Dilip Kumar waxaana soo kale jilaagan uu qayb ka yahay film kale ee Laal Salaam taas oo director ka tahay gabartiisa Aishwarya waxaana soo kale filimkan ku saabsan yahay arrimaha sportska iyo drama Rajinikanth ayaa filimkaas wuxuu yahay mid muuqaal gaar ah oo ku leeyahay Jailer ayaa waxaa lagu wadaa in teatar la saaro 14 Abriil taas oo soo kale isku dhici doona filmka Kamal Hassan ee Hindian 2 intaan ku soo koobina saakatol muuqaaladeena xiisaha leh ku qaada dhigan wararka ugu dambeeyay maanta laga qoray arrimaha ee saakatol laga qoray arrimaha Bollywoodka kuwaas oo inta badan ku qaada dhigan wararka arrimaha koonfurta hadda warbixintan ka heshaan leegan oo soo kala saxaabtiin la wadaag wad kuma sintiin Allah absad muuqaalina u daawataan kan kiis xigana nabadino